السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين عشاكين ما أنت أصحابي وحان دين وذا قصة هذا كهر بعضي بل قصدان بل إلا دقيستا سفي عم القصة هلا إلا دقيستو بريبا waxaa jiray nin iyo naag wadanka Mareykanka bay ka dhacday qisadani ninka waxaa la oran jiray James Coleman baa la oran jiray ninka naagtiisana waxaa la jiray Anna iyo James waxay isqabeen muddo 11 sanadood ah wax awlaad Ilaahay ma siinin muddo 11 sanadood ah bas 11 sanadood markay isla joogeen oo ay jacaylkooda iyo waxooda ay ma aragtay iska wateen oo maxay ahayto baa waxaa dhacday sanadka 12aad bay gabadhi uur yeelatay Ilaahay amarkii uur bay yeelatay way farxday isaguna wuu farxay way isku wada farxeen maadaama ay dad aad jacaylkooda maxay ahayto ugu kalsoonay ahaayeen markooda horeba bas wiil bay dhashay gabadhi James iyo Ann waxa uu dhashay wiil bay dhaleen maalmaha kamid ah ba James isagoo maxay ahayd raba inuu shaqadii tago oo degdegsan wuxuu ilaabay dhalo ay ku jireen daaweyn isagoo u qaadin jiray markaa buu dhaladii buu intuu daawadii cunay buu furki u ka iloobay bas wuxuu yiri aanay dhalada daawada waa iloobay waa degsanaa shaqadan ka daaqsanahay walaalay dabool dhalada xir armaajadana geli abaayaan maxay ahayday jikada ku mashquulsanayd jikada bay ku mashquulsanayd hadalkiisa ma ay sii raacin oo waxay tiri okay honey waa iska tagtay waa baxday bas markay baxday jikadeedii howlaheeda caadiga iska qabtay cleaningeedii iyo cookingeedii waxay haystay bay iska qabsatay wiilkii wuxuu gaaray adigu 12 bil ilaa 13 bil meelahaas ilmaha adigu sanadkii iyo halka bil meelahaas jiro ahaa oo markaas saanta la dhacdhacaya bas wuxuu soo galay meeshii isla qolkii fadhiga buu soo galay qolka fadhiga uu yimid daawadii hoobriska daawadii iyo cun wiilkii qab islaanta warba kama haysaba jikada ay ku jirtaa cunto karin iyo waxay ku mashquulsan tahay iyo ma aragtay nadiifin hadhow goorda bay soo baxday mise maxaa ay dhiibatay wiilka halkan uu yaalaaba baby wake up what happened maxaan warka ugu daalinaya maxaa ku dhacay alla cunugaygii allah gabadhi waa isku dhex yaacday ambulance ay wactay wiil ambulance tii u timid dhakhtarkii baa la geeyay ilmihii yaraa markii la geeyay dhakhtarkii dhaqaatiirta waxba ka qaban waayeen waxaa la yiri waa isku daynay waxaan sameyn karnay balse waxba kama qaban karno wiilka aabihiis ordayay mid telefoon loo diray isla markiiba isagoo soo istaagay iyadoo wajiga hoos u foorinayso oo isla talow maxaa kula hadashaa ninkan oo kala hortagtaa maanta markaasuu yiri honey don't worry we are fine as long as I have you daaw garan kartaan oo malaynaya macnaheedu gacaliso ha murgoonin hadaaba adigu ii nooshahay maxay ahayd wax iga maqan adduunyada haba yaraatee ma jirteen waxba ha walwalin wiilkaas shalay waan dhalnay Ilaahay baan siiyay maantana mid kale iska dhalayna aniga adaa muhiimad ii ah markii la soo wacay waxa uu maleynaya xaaskaaga wax ku dhaceen in la leeyahay meeshii ugu yimid waa gareeyay maxay wuxuu yiraahdaa walwalinin dib malahan waxaan wax dhaco waaye waxaan kuuma qabo waana faraxsan weyn maadaama adiga ii nooshahay marka waa idin ku soo noqonaya waa idinka Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed haday taas u dhacdo maxaan sameeynaa as weydiine gabadhaas haday Soomaali tahay maxaa lagu sameyn lahaa waa su'aal idinka la jawaabta comment-iga igu soo qora asxaabe jawaabta comment-iga igu soo qora haday Soomaali yihiin dadkaas oo gabar Soomaaliyeed wiil Soomaali ahaan lahaayeen jawaabta idinka sugaya comment-iga igu soo qora bal wixii ka dhici lahaa dadkaas Soomaali yihiin sheekadaydu maanta qisada aan idin hayay halkaas aan ku soo gabagabaynayaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.